أنا أقول هذا وقتيا أقول صعونا هير قرن هي قرن كوا وحرودي كما هذا قيناه سودويت يا وحوجن كرجعله قيرو وطني ماله حتى عروتي وتوتي يكون في حرود الأودية سدح شيء أفكر أصلا تكتير ونقول الصب شري بانقارب من وجه عليه بارد كما هذا قينا قرن ماذا حوجن موجسين مثل ذي أبغى أقول كلام ما هو تذكر أنت عليه الشيخ له كرامة له عرهول عرهول هوية صدق له إنهبت له إلا حلا إلا شيء بعد كان تاجنا أنت سعودي آدي أدور ما هذا غيرنا وأنا ما تدي إلى أي كتاسي ما أنا قاعد كذب وحي يلتها عند شعير كان موجسين وهي واحد تبع إنسان يورك مقشين إلى جاية إلى إن بينك على سيسي أيام إيرك ورمي وحنا دوك ورمي يعني وحارد نبتكر السومالي خرج السومالي إلهي مهدي مال أنا ولقيت قارن أو هرمرة أو نقارة أو تعليل أو عافماد أي قارن وأنا مرخاتي مدون مقع السومالي وحاو بحي كن سيدات بقول أفريستيتك إلى بانت أنت هوريس كده أفريس لك يسرون حرتها هين وحي كوري ونارس كدر أما إنجليزات شو أما قرضا إنه كارها كورني إنه سو مرانو أنت أصلا نسوي جي هرمرك أي قاعد سومال أفرز يصدق كان سنود أولي نو دايرين أي أولا هلا ما أقونسن وأقدر يرون أنت بدنا ولا كذا عان وحنتي بدنا ما هيستان أدونك وحما ما هيو دولتنا وحما ما هيسو هرتنك إلهي إسكو حلا يستوي ناس آمنة إسكو كرسونا نول بيسك كهرية سومال لا تات لوادا أي قاعدين مانت عديدين كماله بانك أدونك ما هيستو قاربان كورين ماله دولة وحنوش يقدر ما يسو هذانا سومال لنا أول هرو يقبرتي وحنا كم مرخاتي هرمرك أنو تاجرنا هاي هذا سكر وديو أنت أسوس النضود مال قبيل سومال لا نلمار رجع جوا ولا شفت حسينيو كوا ما أنت تشوفه لا تشبريا شكل عقبضة ما أنت سومال لا نقارها هاي أبورتي وحاي سؤال لا ده هاي ورسلايا أنت سومال كهذا سومال كوا هذا الشيء مركب مدي الله والله نافو أنت كلا بريال هذا يكون برينردا أبا الصومالي اللي باي مانتا ورشينو جوجا وحاله هربركها قال أفرستو خاصة نضون سبب تنوار شيء بنا آدم ومركو هل أبور كيس مركو حرية كذا وحرام وتعب ناخده ويس آمن وحوض يشو ووضع شقيه وحي قال هربركها أي صومالي صبايسي كان إلهي بالغماد يشعب وين صومالي ميرو جوجا توصاليا ما أنت أرضية الصومال الآن سكوليتها مركز لقى بلاو كوا بلوغة إلى جامعة وحي قال يا صقال بقول أو كن أنتي نجوه الرئيس ودنا وحي رقادنا نول ما أنت كن يا صقال بقول يا صدق يا فرتكي أرضي جوه الرئيس سكول قال أيا نورو نسرع قاديه كل جسر جسر الله ما أنت iskuulada markiina barada la qaad jiray kuwii aan ugu dambeynaa intii aan afsoorka laga dhigay aan ka caanku shirsiin kalaasyadii kalaaskay kala masalay la boqolisto buha nabarkay barka warraba koon isteed boqoliyo afriseeteki ila kun iyo 990 inta sanadooda u dhaxaysa iyo afariisto kala keenu gaarnay mabda'a dawladda Soomaaliya waxay ahayd inta cariinta iyo caafimaadka iyo biyaha dadka meeshooda loogu geeyo aan loola soo doonto teena meel fiican aynu ka maraynaa maanta tuulo wal oo ay ku noolyihiin 500 qof soo hoydaanba waxa loo leeyahay iskuulka hore galowna buuxi tuulo walba oo ay ku noolyihiin wax 500 600 qof gaaraba wuxuu leeyahay biyaan u baahnay biyo keen marka Soomaaliland ciidan ahaan tuulo baqanaya ma aha
ها dhibaatooyin waa jiraan dagaalna waa jiraan colaado badan way jiraan laakiin qaarda in ruuxaya maaha inta ina weeraraysaa waa inaynu ka adagnahay waayo cid kastoo dagaal lagu soo qaada Soomaaliland soo kaasano toos iyadu kaligeed qola inoo weerartaa ma jirto dawladda adduunka oo dhan ta inoogu colaad badani waa dawladda xamar ka dhisan ee la Soomaaliland ma jiri karto gaal iyo islaam adduunka oo dhan qolada ugu colaad badan weeyeen inama soo hawaysan karto iyadoo cid weerartay mooyaane mar Afrikaanka u yeelataa oo la sida xukuumadda fadhiyay mar Mareykan bay u yeelataa ma hadana Moscow ka degtay cid u doonataa imikana Masar bay u yeelatay oo Masar maxaa anaga galay laba hal isma qabanayaan laba cod balse kay qabatiya ninkasto Soomaali ma ay yaqaano oo Soomaali oo meel joogo halka doonta joog qurbad joog dalka Soomaaliland iyo Soomaaliya afka laga hadla meesha joogtaba laba hal isku kay raaciyo waxa isku kay raacisa Soomaali waan jecelahay oo waan mideynaya oo waa dadkaygii oo waan ka naxaya iyo baalin walba shisheeyaan ugu yeeranaya oo waan la dagaalamaya oo markaan Itaali waayo waxa la masalay kaali Soomaaliland iyo qabo Soomaaliland waxay ku leedahay adiga Masar taadu waxa haysan keena waayo maxaan erayga maxaan oo boor bay waro isagu markasta xagga adigu ma ka raacado waa qof qalifsan maaha waan sheegay sababta leh xamar waxay dagaalaneen toosana dagaalooday oo inuu dalka uu soo galay oo ayna waxba isu tirin iyadoo Mareykan ictiraafsay oo Soomaaliya joogto oo Ruushka ictiraafsay oo Afrika oo dhan caawinayso oo Carab oo dhan caawinayso oo Masar ka tahay caawinayso oo hub iyo diyaarado iyo xataa kuwa Carabta ka taagay Carabta ay halka joogaan ayaynu haan caad shafrood iyo calcal kaga burutay xubin go'goonbeedina ma duco igu siiyay ma la bari igu siiyay meenu barinay soo nafeedo ma ina hore maantana wixii waxa ka sokeeya oo baartay miciil moodayo dhagudhigi mayno Soomaaliland loo baqi maayo dadkeeda maanta waanu soo maray daraf ilaa daraf way ku midaysantahay cid kuma gardarooto cid Soomaaliland ku soo xadgudubtana waanu isranaho waan isqaana waxay raacdataa Soomaaliland dhexdeeda waxa la wixii ka dhacaa waa caa'ilad Soomaaliland ilaahdo oo adduunka hor ictiraafsan yahay waxay noqonaysaa waxay ka wada hadlaan gacanta shisheeye soo gasha waa jarayna oo waa la dagaalamay inta waxa raacinaya Soomaaliland dhiig wadaag bay leedahay xorriyaday wada leedahay dalkay wada leedahay horumarkay wada leedahay hase yeeshee meel walba iyo sabaan walba lama waayo qof ilaahay tusi waayo wanaaga culimadu inta masaajidka waxay ka hadlaysaa inaga waarinayaan nin wanaaga diidan oo ama muraafaqo bixi ama ma ka soo bixi inta soo aayadood iyo xadiis ka soo dareeray illa waa helo qof wanaaga had iyo jeer diidan oo balaaya u qaynayso teena mashruucya ka mid doona oo laga yaabaa dad tirayar ama ashqaas inay taa gasho kuwa horta waxaan leeyahay ilaahay ha soo hadiyo waa dadkeeniyo ducaynu ku daynaa kii diidana diinta jideysay distoorka jideeyay dadnimada jideeyay qofkii wax baabiinaya afku doonaya ku hadle oo ummadda wax yeelaynaya oo wanaaga loogu taag waayo shaydaan watana waxa ina faran dhamaanteen inaynu iska qabanno oo ummadda laga qabtay taariikh khasaaro u geysay waxyaalaha qaarkood imika waxaaba soo ifbaxay oo afkan telefoonka in wada ku dheereeyo lagu silmay kii shaydaaniga ahaa iyo kii dalkaba haddii habeen loo dhiiba gadi lahaa iska iibsan lahaa iyo kii haddii loo yimaado oo laba qof tiraahdo wanaagsan lagu wareejin lahaa oo dadka noocaasa oo marka ay baalkan telefoonka la soo galaan afka wanaagsan ku hadla markuu la hadlayo afkiisu uu macaan yahay qalbigiisa ugu adag ba ku jirta ee ku nicib ku jecel yahay wanaag uu ku diiday ayaa laga yaabaa inuu gaaray halku iska qalin lahaa
heer uu yidhaahdo ummaddan u sharaxanahay oo waxaan doonayaa dalka hogaamiyo meelmar subxaan allahi codkiina idinka oo qof kasta oo Somaliland oo horumarkeeda iyo midnimadeeda jecel uu Somaliland idiin sameeyahay ila dalka warwadanahay oo qofna qabyaalad iyo adeer buu yahay ku eegaynin waxaad yeelaysaa qofka dadka sharaxan dalka inuu dumiyo u diyaara oo cadow iyo danta ummadda ka soo horjeedsadeen iska garto codhaasiina qofkii dalka dantiisa hore u soo wada ee Somaliland bariya galbeedka doonayaadeen ina codkiina siisaan adinka waxaan iska dardaarayaa inaad labada u fiirsataan codkiisa waayo haddii ay deegaan walba iyagu isku koobaan oo inaga yidhaahdaan dee wada shaqayn kara mayno ma kala nihin haddaynu Somaliland nahay idinka iyo annaga cadowgeennu waa wada iyaga labadaasaynu ka howlgelaynaa oo aynu doorashada ku gelaynaa xisbiga kulmiye wuxuu soo bandhigayaa oo abtirsanayaa dowladihiisa iyo halgankii dalkaba halka uu kaga jiro idin soo bandhigaya qofkii ku qanci waaya la yaabi maayo waxaan leeyahay bal hadda midna dhaamo doon dad hayso xisbiga kulmiye wuxuu idin soo bandhigayaa taariikhdu halgankii ku lahaa iyo halkuu kaga jiray qof walba halgankii soo galayna kulmiye waa la saaxiibo walaalkii waxay wadleeyay laakiin inaan 40 jir ama 30 jir dhexda kaga soo booday oo waqtigu si u yar saaciiday oo isagoo qulays garanaya waxa joogay wax ka hor joona aan garanay dabeetana dalka la booday mikrofon xil aan marka hore si dalaga uu galay ama nasiibna in badan magaciisa la maqlo hebel la yiriyo adeer joog baan ku leeyahay joog uma qalansid waayo mas'uuliyadda ma qaadi kartid haddaan leh darbaaro qeyrqeyraay haddii loo baahdo soo galana waa loo sheegay waxay imika afka laga dhowrayo ayaa nin walba dhabarka loo saaray anna intaa lee waa la ii saaray anigu dhowr iyo 40 sano u baan mikrofon iyo saaxadda soo taagay inta halkaa joogta aabayaashii baa laga yaabaa inuu soo shaqeyn qaar baan awood u ahay inta waddanka waa soo sheegaa maxaa la nin miyuu jooga oo 20 jira ilaahay waa xil qarin nin Soomaaliland jooga oo 40 sano dad hor joogay ilaahay uma xil qarin laakiin intaydan ku doodi doona marka qarannimada saasaynu uga tarayna halka waxa jooga nin la yiraahdo Xaaji Ibrahim Caydiid alxaqiiqa waa oday weyn oo ka dhoofareeya hadalka lama siina waa oday weyn oo in lagu arkaan jecel bal halka soo fuul alxaqiiqa la yiraahdo ninka muddo 2 sano waa dhageysanaysa dagaalkiisa waa qarannimada halku ka joogay si wada waa garanaysan Soomaa الحقيقة وأنا أبترسنا أسأل بالقوة أبترسنا عيدا كي أجا مكان قوة أبترسنا عيدا كي هرجسي برعاس وقلنا بعد كم بفرسنا قربوا تجوا استراليا اسمه إلا بن هل كيسمه كسود مرة بدنا أنا غلفت أسير شري رجل واحد شغله رجل واحد ضق بوه نيجي جبت هوا وقرنايا سيجي باور سيسير مركو تجي قربها اسمنا إلا بن قرباء وين أمور نقول هل كان كاركتير بكرة براو هل كان كأو كتيرو وكاي أكتاجه وحالي وحدون إرادة كورية هاي موجودة مركي أنا يسورة سناي وحودا لين قرادة كورنيلا هذا كبده هاي جامعة سي أيو استرالي عرنا وقرص وكاي واردلك واتل نحل ورجيم محاكو كتير وحبكم في الدين تذكيب أنا تقول كلام آدي أدبار ومنطقة هوش عروة مركي وحلا دورة يصير نكاسو كاره إن أيدو يلا قرنيو aan loo eegin waa hebeliyo waa caynkan uu yiri inama jookar la baxay midaankan soo dhigay waxay saarta ka taranaya qaranka waa hadda doona mar labaad waxaan ku soo koobayaa waan u mahadnaqayaa reer allay baday rag iyo dumar rooliya caruur dhammaantood waan idin mahadnaqaynaa waxa kale oo mahadnaqayaa salaadiintii oo dhan oo halkan fadhida oo inta badankoodu naga socdeen oo hore isaga dhowr jiray xisbiyada iyo odayaasha dhexda joog jiray madax raqameedku
laakiin imika waxaan hadalkaa dheer ugu jeedinay macayaga dareenka وما حسني على ذي إنه تجي يعني إنه خلاص هو روح حربسينه يا برضكم ما هذا قينا الله هذا شرفه سوى عم بنا وسلو ويسين ترشعين يدم بنا وسلو ويسين ضمان إيه أنت إلى سعتي أو أنتو ذا بدري هب الله أنت أورجي لورجي حلي بالله أو مسؤولين هراك كم أو حلا هرد الكسوة قبتي أو دوار له سؤال ما بدي سنتين waxa ka dhaxmudooday oo xayir walaa xagarina dhalinyarada waxa kala leeyahay ilmaka haatan aniga da'daydi xilka nagala wareego oo dhowr afar sano baan soo taagnay rag baa siiyay warna ixtiraamteen intaana waa tanaasuleyseen marka waxaan u sheegayaa ragga ina socday kuwa halka taagan siyaasadda u soo wada qabtaan inuu siyaasaddu waa tala la wadaagayo maxaa la yiraahdaa ma rag waa mudacayafkood maxaar baa laga toraa ragaaga lagu diidayaa mid kale soo jeeda loo dhiibayaa haddaydan maxaal wada noqon Soomaaliland baa la hadlaya guud ahaan oo marka talada sugu timaada aad mudacay noqoto waa ku jawaabna maxaalkaas lagu soo duubay ninkii la waabiyo dul qaado wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ويمتو كتاس هوي maanta waxa jiba ku tusayaaday war ma ciyaarahaagiba mise wax kala wada ma yahoy eeg halkan waxaad ku bixin kartaa lacagta leedka ta adeeg ta qadada hatta habriyar lacag wada ku dhaxday kartaa break maanta baad war la timide alla jisanida hooyo hatta lacagta waad ku dhaxkaysan kartaa cid ku ogaanaysa ma jirto wallahi waa daha hooyo hatta halkan waxaad ka arki kartaa goorta habriyar lacagta heshay ما شاء الله دربا way gaadhay ma filayaaday eeg imka tiina sawacay oo goor mu yimid isoo kii maqnaa ma yahoyo isla wuxuu inala isticmaalayaa abkan aye waa ka toos inoo sawacaya oo reerkiiba halkan aad ka arkaysaa midkaad lacag u dirtay iyo kii kuu soo dirayba alla ilaahay waa dahab hayahoy dahab plus wallahi waa dahab hadda kala soo deg App Store iyo Play Store